consulting with Allah. إله لا تصنيسه. إله وجور كان this marriage this guy أما قبرنا هدي جور كده خير إلا في عيا إله هديك إله وس. Then before that also you consult with the people. Also that كي يقان لا تصنيسه. مركز وأنا قوان قارته business everything وأنا لا تشتى مركورة إلهي. شكل يا كوزعت مركز نينكي ما كوزعته قوان كده كذا مركز decision. وكا مركا لا تشجع buug wuxuu ka hadlaya marka la tashiga yani ha ahaado mid la taliyaha dadka le moogtahay dadka la taliyaha le xataa diiniyan waxaa jiro asxaabi nabiga uu soo qarab qabtay alayhi salaam dan ayaga waxay soo qarab qabteen dad ay soo qarab qabteen adana sidaas la isku soo qarab qabanayay sheekh iyo asxaabo maaragtay dad ayaa ilaa Imam Malik markuu soo gaaray asagoo dad ba soo gacan qabtay dadkaas dad kala sii gacan qabtay you know صح دينتو waa la isku soo dhiibay hata daa'ikid dunidan cadaanka westka Bill Gates waxa mentorkiisa kan ishek kan Will Street what is his name kan no film maanta laga sameeyay what's his name aduni bachira nin Wall Street waxa soo qora magaciisa I don't know that guy. What's his name? Who can tell us the name of the guy, the owner of the Wall Street? mentorkiisa mar walba isla joogaan they with him always bariya yaqaan I don't know that guy waxa weeyaan I think mid dhahay bari haddaan millionaire ku noqon one am teedi one stilaya building ugu dheeraa ka soo dhacaya yani hamigiisa meeshuu geeyey samays dilay waxa la dhahaa Wall Street yes magaciisa maxaa la dhahaa laakiin magacu leeyahay ma isdilay maya wuxuu noqday millionaire laakiin mid waxa jira asaguna caan ilaa hadda oo buugiisa uu yahay buuga loogu akhris badan yahay Dale Carnegie the author of How to Win Friends and Influence People buugaas ninka qoray soo ma taqaanid Warren Buffett waa mentorka Bill Gates Warren Buffett qof ay soo qoray thank you Warren Buffett af Soomaali marka mentor af Soomaali maxaa ku dhahaa ninka tababara waxa la dhahaa la taliye okay I got it marka Warren Buffett wuxuu ahaa ninka la taliyay Bill Gates muxuu ku soo gacan qabtay ilaa hadduu ku dhaafay dusara ma ka baxay Bill Gates dusara ma ka baxay haddii eegtid meel kalena ninka Facebook waa garanayna waa la wada isticmaalaa Facebook anu ma isticmaalo weligii ma furan asagii Instagram iyo social media oo dhan weligii ma furan kana igu horeeyo meelo yar aan tagi jiray oo big life iyo meelo yar laakiin meelaha public ma tagi jirin marka waxa dhacay ninkan Facebook le maxaa la dhahaa Mark Zuckerberg waxa mentor u ahaa ninka iPhone-ka waa garanayna Steve Jobs ayaa soo gacan qabtay yani waxa lagu tusayaa in kiliga waxba noqon karo dunida you need yani some kind of gargaar la taliya u baahan tahay la taliya ma inuu maal ku siiyo waxa ugu daran waxa la dhahaa qof wax ku siiyo waa la helaa qof wax ku sheeg lama helo bal hadda wax noo sheeg bal adigu soo socod ana ku sheeg hadaba marka yaraa waxaan jeclaan jiray dunida dadkeena dalkeena inuu wax ku soo kordhiyo marka aan aqliyeystay teenagernimadeeda dhaafi waxaan ogaaday ma garanaysaa walaalo waxaan ogaaday inay dunida dalkeena iyo dadkeena ay talalaan haynin horto kowde ilaa inta sodada ubaxa soo kacayo bilaa talo ka buuxo talalaan horto ma jirto wax la dhaho maxaa jira ku talagal the world is the way it is waa ku talagal waddankeena siduu yahay waa ku talagal talalaan maxay soorto soo hadda waxa kugu soo kordhino anaanu talaan u keenaynaa they heard it all before wax la dhaho waa ku talagal waxa meesha ka socda dunida dalkeena iyo dadkeena maadaama ay ku talagal tahay maxaa sababay misdhii kartaa haye waa si yar qodqoday waxaan ogaaday ku talagal inay tahay what ma garanaysaa benefit some people ayaa benefit karaya qabqablayaasha dunida iyo dalkeena iyo dadkeena way benefit karayaan maxay ka benefit karayaan jab iyo hooga because
hadday dulkee ha ka soo qaad waddankeena hadduu dego cagaha dhigto totally peace la helo maxaa dhacayo xisaab ma laha la dhaa mogtahay dadkii wax dilay xisaab baa u taalo dadkii wax walaaqay xisaab baa u taalo dadkii wax dhacay afka weynaa wax xisaab baa u taalo marka adu xisaab ku taalo waa ka meermeersanaysaa soo maha dunida dadka maxay u jecel inay iska joogaan ee aakhiro u tagin because way meermeersanayaan they wanna borrow time inay ku noolaadaan صح that's the fact marka that's the root of all waxa jira root iyo cause waxayna dunida walaaqan tahay laakiin may effectka yani way walaaqan tahay la effectka eegayna cause ka u dhadhacno xididka waxa ogaanina jirada jirto jiradu waxa weeyaan dad ayaa ku nool inay dunida qasnaato dad baa ku nool wadankeena qasnaado dad baa ku nool inay dadkeena qasnaadaan they benefit exactly tan ugu daran tan qofkii صح حاجة لoo dhintay hunguri ana kana u gubnay Soomaali waxa ka jirta la yiri badar ma yahaysa badar qof raba inuu dilo soo dil baa leeyahay badar meeqa qofkii qof dilaya waa badar qofka gaariga minada ku xiraya waa badar midka hoteelka ku xiraya waa badar midka isqaxinaya waa badar waa isqaxiyay badar muxuu tariyaa marka waka in adeerkiisu waxa laga yaabaa inuu hanka jaro because of badar wakaas dadba waxa dhacday mid buu dilayay wuxuu yiri warmadi shay buu yiri siri aan sunnihiyo tukaday bir faralkiyo tukada sunnihiyo tukaya bir hadarta waka sunnihiyo tukaya bir faralkiyo tukaday hadda sunnihiyo ku jira bir bas marka Soomaali waxa ka dhacay lascaanood at least 400 500 men and women died last 7-8 days. maanta kaliya meeqa dhimata hadda xabad baa dhacaysa this moment wuu dhacay waa Soomaali laakiin waqtahay walaalka bariga hore anigu dadkay dunida marka arko dismoral ka noqon jiray waxa dhigi jiray oh my god dadkaygaas dhameeyay maalmaha kamid ah dibadan joogo wadanka ayaa naag xijaaban baa naag cad ee geeska gelisay markay degtay dhahday dadkaana aba nacay dadka dhameenayo marka ma oga anigina muslim ahay because ma xijaabni soo maha ani waxa ugu jawaabay do you know waa ku dhahay dunidan exit yaalo guryaha hospitaalada soo exit kuma qorna I said in this world exit yadeeda waxay noqon kartaa qarax xanuun jab kale accident it's only part of the exit aan ku dhahay naagti thank you walaalo it's part of the exit aan dhahay thank you walaalo it's part of the exit aan dhahay exit kama hafay ay ka mid tahay inuu qofka qarax ku dhinto inuu because ilaahay ba qof waqtigiisa Soomaalida waxay ku leeyihiin waa kugu faana we are proud of you bay ku leeyihiin thank you waxa marka yani waxaan ka wadaa yani qofka ilaahay ba